السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيات وشرفت له وسود هذا تقدني channel إن ما تبغى إذين هيا برنامج اللي هو changing of lifestyle. سيدي نرش هذا أو بدله دايت معهن دايت كوح بالوضع أو دم هذا واي. لكن أنا سيدا قلناش هاي جبي أهم بقى بديشيد أو كنت شفت السند أفتر سند ووحفي عنه marka maantay ila qaybsada maadaama ramadaan bil barakeysan oo cuntooyin badan ma sha Allah la cunayo aan ka soo baxnay waxaan u baahanahay inaan routiinkeena hore ku noqono wadadeeni fiicneyd inaan ku noqono insha Allah anigu waxaan bilaabayaa maanta insha Allah inaan idin la qaybsadana waan rabaa wixii qalad igu noqotay kaliya inaan maartay wadadeedii isaga noqdo marka waxa u baahan tihiin aan ka soo bilaabaa insha Allah number 1 waxa u baahan tihiin waxa la dhaho miisaanka waxa ka sii muhiimsan waxa ka la dhaho cabirkan qaybtan waa qaybta inchiska waay qaybtana qaybta centimeterka marka inta badan labada dhinac buu leeyahay hada kanoo kale labada dhinac waxa waaye centimeter waxa ka fiican kan dhinacna farta waaweynka loo inchiska dhinacna centimeterka anyway kana ugu important miisaankan wax badan ma sheego because sometimes waxa arkay one week dhan adigoo exercise sameeyay cuntadaadii badishay oo meeshii aad ka dhaqaaqin maalintii miisaanka koraysa let's say waxa badaheedba 70 miisaanka kortay 70 week uu dhamaaday 70 waxa laga yaabaa inaad dhahdid what's going on week dhan ma aragtay noloshii wax ka bedelayay laakiin kan hadaa qaadatid oo week ka hor dhexdaadi cabirtay baridaadi cabirtay xabadkaaga cabirtay cududahaaga cabirtay ajradaada cabirtay wuxuu sameynayaa markaad soo qaadatid cabirka oo maalinta dhexdaadi cabirtid meeshu soddon uu ka ahaa injis waxa laga yaabaa 28 noqdo waxba ka dhacay laakiin wixii ka dhacay baruurti ahayd waxa samaystay waxa la dhaho masal ama murqo wuu ka miisaan maartay culus yahay maxaa la ii sheeg baruurta waxa laga yaabaa 10 kilo baruur inuu dhiganto 5 kilo oo maartay muruq ah marka kan ayaa wax kasta ka muhiimsan anyway hadaa soo gadanaysaan miisaan maadaama adduunyo kala duwan aan ku noolnahay wadamo kala duwan waxa soo gadataan mid ka dhowr nooc leh هذا كانوا كله وستون مشاس نمبر كاس وجدان وستون كله حوالي كيلوغرام كي تشيد هالكاس وجدان كان حوالي باون كي مركا وحالا يقف كنت لو بقول باون وياهي لو بقول باون هذاك 100 كيلو كريه سوقت إنا كويد لعبتنا الخسارة كون نقطه مركا يسوي سكول تشري سوق إن شاء الله كان سيد أول استعمال اللهيت صبحي سو توس iska soo xajood musqushaada iska soo gal calooshaadii soo faaruqi waxbaha xiran dhar ma aragtay adag special hooyooyin kale maradaadii baatigaagi kaagi ma aragtay xali ku urday oo de waxba lahayn oo wax bira kugu xiran iyo waxa raadsan waxba aad lahayn soo kor subixi adoo cunto cunin waxba cabin calooshaadii oo xali nasto empty ah kor adin waxa u baahan tahay waxa la dhaho xusuus qor ama diary I know what 2005 can you believe it 2005 diary-ga aan qoray aan meel dhigay ayaan maanta dib u soo helay store-ku isaga jiray 2005 ayaan sidaa u noolahay iska nacay marka waxaan sameeyay kowdii January ayaan day 1 ka bilaabay laakiin idinma sheegay inta aad baa islaanimay waan waday marka subaxii waxaan qori jiray waxaan cunay barqadii waxaan maaragtay aan cabay ama aan sameeyay inta gym aan aaday exercise ama dabaal aaday qadadii waxaan cunay snack oo casirkii waxaan cunay cashadii waxaan cunay iyo time kan special aan cunay waan waday maalintii aan sameyn caajiso ama busy noqdo meesheedu waan ka tagayay si aan u ogaado maalmahaas inaan waxba sameyn وانا قاعده حمى سمين وانا ودا سميه ودا بوحه
waxaan ka qaaday qoraal badan wuu i caawiyey ma aaminaysaa January intaan bilaabay sanadkaas 2005kii December 2005kii 32 kiilo iga dhacday 32 kiilo inta ma ku taalo 10 sano ina yar ahayno u ekaaday 10 years younger one day anyway maalinta marka halka ku dhameeyay December ayaan maartay xiray marka waxa u baahan tahay buuga xusuusta ah xusuus qorkaas diary-gaas u baahan tahay ku kiib garayso isaga qalinka iyo kala maqlaan iyo cabirkaas maanta daacistay qor si daacad u qor maanta waan caajisanahay exercise ma sameyn karo cunto maartay oo ma bedeli karo waxaan ku noqonayaa weygayga hore ahaan jiro ku qor be honest because waxa laga yaabaa maalin dib u fiirisid maalin waxa laga yaabaa cunto fiican oo nadiif ah cuntay exercise badan aad sameysay maalintaas ee miisaan badan ka dhacday maalmaha kale aad caajistid ku noqo maalmihii miisaanku ka dhacay samee wixii aad sameysay oo ku caawinaya insha Allah marka waxaan rabaa in la qaybsado waagii aan ayna anyway iyo markii aan soo caatoobay waan qaawanahay ma doonayeen in la qaybsado anyway 32 kiilo ayaa iga dhacday marka hadda quraacdii aan ka bilaabaynaa hadaan hadalka idinku dheereynaa raali ahaada laakiin wax hooy ahaan gabdha ahaan ibn wiilasha wana la soo join garan karaan insha Allah gabdhaha qaaliga ah hooyaan nahay anaga nafteena hadaan jeclaanin nafteena hadaan koow ka dhigin oo maleena qof inuu koow naga dhigaayo jaceelka koow waa inuu anaga nafteena ka soo baxo inta qof kale u gudbin anaga waa inaan is jeclaano anaga waa inaan isla dadaalno anaga waa inaan is qurxino dan markaas indhaha bini aadamkana qurxoonahay inaan dadaalayno ay arkayaan sida daraadeed nagu si jeclaanaan marka anaga iyaga jaceelka marna hadee waxaan rabnaa inaan nafteena koow jaceyl aan ka soo bilaabno kadibna koodaan ku xijino insha Allah ila socdo quraacda insha Allah